u fara badan kuwaasoo isugu jira dameer farow gari goranyo libaax maroodi diir shabeel yaxaas biciid iyo kuwa kaloo badan oo halkan lagu soo koobi karin waxaa jirta meelo qaarkood oo Soomaaliya ka mid ah dadka ku nool iyo xayawaanka marka la isbarbar dhigo waxaa badnaa xayawaanka 3 laab ama 3 jibaar Soomaaliya dhulkeeda waxaa aad loogu arkaa biyaha oo meel kasta yaala Soomaaliya wali ma leh gaadiidka lagu gudbo wabiyada ama buundooyin badan dantu waxay qasabtay dadka inay samaystaan doonyo ama doomooyin xarig intee labada dhinac ee wabiga ku xiraan ayay ku gudbi jireen doonta oo loogu gudbi jiray wadankiisa kale ama badiga kale haddaba dadku waxay samaysteen kanaalo ama durdur si ay uga faa'iideystaan wabiga waxay ku soo leexin jireen beertooda dadka ku nool Soomaaliya 3 meelood markii loo dhigo meel ahaan waa beeraley runtii wax soo saarka Soomaalida aad ayuu u weyn yahay mooska ama muuska oo ah waxyaalaha ay Soomaalidu aad ka u beeraan kuwooda ugu qiimaha weyn dadkan ka shaqeynaya beeraha mooska ee ku yaal shabeellooyinka waa dad si adag u shaqeeya mararka qaar waxaa dhacda inay 17 saacadood shaqeeyaan maalintii ayagoo qaadanaya tababaro sida loo abuuro beeraha iyo sida loo xanaaneeyo waliba sida loo ogaado waqtiga uu mooska bislaaday talyaaniga mar uu cilmi baaris sameeyay waxa uu sheegay mooska ugu macaan adduunka inuu yahay kan Soomaaliya mooskan Soomaaliya laga soo saaro waxaa dhoofiya wadamo kala duwan waxaase ugu badan wadanka talyaaniga oo 80% isaga dhoofiya wuxuuna wadanka ku leeyahay shirkado badan oo dhoofin dhibaatooyinka ugu weyn ee soo food saara shirkadaha talyaaniga iyo Soomaalida waxay ahaayeen Soomaaliya oo aanan lahayn dekad caalami ah laga dhoofiyo mooska danta waxay ku qasbi jirtay inay mooska ku qaadaan doomo yar yar si ay u gaarsiiyaan maraakiibta waaweyn ee badda bartankeeda jooga waayo muusku hadduuna talaajad helin uu xumaanayaa ama halaabayaa shirkadda ugu muhiimsan ee beeraha wadanka Soomaaliya waa tan uu sameeyay Luigi di Savoia liinta bambeelmada rumaanka iyo kuwa kale oo aan la soo koobi karin shirkaddan aad arkaysaan waxaa ka shaqeeya 100 qof oo Talyaani ah iyo 5,000 oo Soomaali ah waxyaalaha kale ee Soomaaliya soo saarto waxaa ugu badan suufka ama cudbiga hadba kala u taqaanaan iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya beerta cudbiga ama suufka ay u badan yihiin haween warshadda gaar ahaan meesha suufka lagu kala bixbixiyo waxaa ka shaqeeya gabdho yar yar oo aad u qurqurxoon shaqo kasta oo meesha ka socotana ayaga ayaa ka mas'uul ah taasoo ku tusaysa dumarka Soomaaliyeed dhismaha wadanka inay qayb weyn ka qaateen wadamada islaamka haddii loo fiiriyo haweenka Soomaaliyeed waa kuwa ugu madax banaan ama ugu xorriyad weyn oo qabta shaqo kasta shaqooyinka ay qabtaan dumarka Soomaaliyeed oo ah kala bixinta iyo habeynta suufka waa shaqooyinka ugu dhibka badan ama ugu adag ee la qabto waayo waqti dheer ayay ku qaadataa safaynta suufka warshadaha Talyaaniga uu ka dhisay wadanka Soomaaliya waxaa ka mid ah warshada sonkorta sidaad arkaysaanba shaqaalaha waxay ka shaqeynayaan beerihii qasabka warshadan oo laga dhisay tuulada la yiraahdo Duubka Dalla Abruzi waa gobolka maanta loo yaqaano gobolka Jowhar waxay ku taalay meel aad muhiim u ah dhulka wuxuu caan ku ahaa qasabka waayo waxa mari jiray wabigii Shabeelle 10kii sano ee Soomaaliya Talyaaniga xukumayay wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta sonkorta waxay noqotay 100% dad aad u fara badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqeynaya warshadan Talyaaniga waxay aad ugu caawiyeen Soomaaliya korista xoolaha la dhaqdo kaasoo gaaray 1 milyan iyo bar oo lo ah iyo 2 milyan oo geel ah Soomaaliya waxay ku dhaweyd inay noqoto wadamada Afrika ugu xoolaha badan
reer miyiga ama xoolo dhaqatada waa dad aan aqoonin qorista ama akhrista. sharciga ay isku maamulaanna waa kan qabiilka oo saameyn weyn ku leh dhaqanka Soomaalida. iyadoo la ogaaday in waddanka xooluhu aad ugu badan yihiin ayaa Talyaaniga wuxuu isku dayay inuu furo warshad hilibka. waxaa loo sameeyay xoolaha meel lagu qalo ama lagu gowraco, iyadoo la ansixiyay xoolaha birta lagu qalayo in lagu qoro bisinka si ay markaa xalaal u noqdaan. waayo dadka Soomaalida ah shaki ayaa uga jiray hilibka gasacadaysan ama dhaasadaha ku jira, waayo waxay u barteen hilib fresh ah. maqaarka ama haragga laga bixiyo xoolaha wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah ama u qiimo badan. sidaa darteed haragga xoolaha ama maqaarka xoolaha qaar waa la dhoofin jiray, qaarna Soomaaliya ayaa lagu isticmaali jiray. haragga ugu qaalisan wuxuu ahaa kan libaaxa iyo shabeelka oo inta badan loo dhoofin jiray dalka Talyaaniga, taasoo lacag adag ka soo gali jirtay waddanka Soomaaliya. dadka Talyaaniga ah ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa inta badan lagu arkaa maalmaha Axadda ah agagaarka kaniisadda weyn. Soomaaliya waa waddan muslim ah 100%. masaajidyo badan ayaa ku yaala Muqdisho. masaajidka ugu weyn ee Muqdisho ku yaal dadka isugu yimaadaan maalinta Jimcaha waa masaajid caan ah oo la yiraahdo Arbaca Rukun. 2 sano waqti haatan laga joogo, baarlamaanka Soomaaliya wuxuu soo saaray sharci ah in haweenka guryahooda aysan ka bixi karin wixii ka dambeeya 6 galabnimo. tan labaad oo ah dumarka oo aan loo ogolayn dariishada ama daaqada inay istaagaan. waxaa Muqdisho dhawaan ka furmaya safaarado aad u badan, kuwaas oo kala ah safaaradda Faransiiska, ta Ingiriiska, Mareykanka, Yaman, Masaarida iyo Etoobiyaanka, kuwaasoo ogaaday in Soomaaliya ay tahay waddan nabad ah. Muqdisho markaad ka eegto dhinaca dhismaha waxaad arkaysaa in ay ka socdaan dhismooyin aad u fara badan. waqtigan waxaa lagu qiyaasaa in Muqdisho ay ku nool yihiin ilaa iyo 100,000 oo qofood. telefishinka Talyaaniga ah ee la yiraahdo RAI wuxuu keenay Muqdisho qalabka raadiyaha, kaasoo sahashay in waddanka intiisa badan laga maqlo raadiyo, iyadoo ahayd markii ugu horeysay ee dadka Soomaaliyeed ay raadiyo dhageystaan. Soomaaliya oo aan haysan luqad la qoro inay ku hadlaan mooyaane.